wasiirka gaashaandhiga isagana waxa uu ka hadlay isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo uu maaragtay oo iyaguna meel fiican maraya taas oo maaragtay lagu guuleystay in la isku dhafo ciidamadii haddana loo wado ama loo samaynayo ama loo qorsheynayo meelihii ay maaragtay lagu hayn lahaa ee la geyn lahaa ee deganaan lahaayeen shabeellada dhexe iyadana waa laga sifeeyey nimankii nabadiidka ahaa al-shabaab shabeellaha hoosana waa laga sifeyn doonaa insha Allah oo qorshahoodu waa socdaan